war degdeg ah weerar iyo dagaal qaraar oo toos oo ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. xaaladii ugu dambeeyay ee dagaalkaasi goorta iyo goobta uu ka dhacay dagaalkan iyo khasaaraha la soo tabinayay ayaan doonayaa inaan kula wadaago. sidoo kale waxaan warbixin kooban ka siin doonaa xaaladaha cakiran ee maamul goboleedka Puntland ila joog oo muuqaalkan dhameyso laagsar si uu meel fog u gaarana sii sheer garay ku soo birbarteena si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay xaqiiqda ku salaysan mahadsanida. warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaare ka dhashay weerar culus oo ay xalay dagaalyahanna ka tirsan kooxda Al-Shabaab ku qaadeen agagaarka magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. weerarkan oo lagu ekeeyay fariisimo ay ciidamada ammaanka ku leeyihiin waqooyiga magaalada ayaa waxa xigay dagaal toos oo u dhaxeeya labada dhinac. ila wareedi lagu kalsoon yahay ayaa inoo sheegay in dagaalkan uu qaatay saacado isla markaana la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. saraakiil ka tirsan ciidamada daraawiisha Koonfur Galbeed ayaa xaqiijiyay jiritaanka weerarkaasi waxaana ay sheegeen inay iska caabiyeen dagaalka lagu soo qaaday. Al-Shabaab ayaa dhankoodu sheegtay mas'uuliyadda weerarkan waxaana ay shaaca ka qaadeen in khasaare ay ku gaarsiiyeen ciidamadii ku sugnaa goobta lagu dagaalamay. xaaladda ayaa iminkadan ah mid aad u degan waxaana goobta lagu dagaalamay ciidamada Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ku sugan yihiin isla markaana ay ka bilaabeen howlgallo lagu baarayo deegaanadii uu dagaalka ka dhacay. weerarkan iyo dagaalkii xigay ayaa ku soo aadaya xilli maalmihii ugu dambeeyay aad loo adkeeyay amniga guud ee magaalada Baydhabo kadib amarro culus oo ay soo rogeen laamaha amniga magaalada. inta badan xubnaha Al-Shabaab ayaa weerar culus ka fuliyay gobolada Bay iyo Bokool oo ay go'doomin ku hayaan halkaas oo ay ka jiraan xaalado nololeed oo aad u adag. dhinaca kale madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo haatan ku sugan magaalada Garowe ee gobolka Nugaal ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee maamulka iyo doorashooyinka Puntland. Gaas ayaa ugu horreyntii saluugay qaabka ay wax u socdaan iyo hanaanka ay xukuumadda u wajahayso doorashooyinka la filayo inay dhawaan ka dhacaan Puntland. sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday walaaca ay murashaxiinta mucaaradka ka qabaan gudiyada doorashooyinka ee uu dhawaan magacaabay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni. dhanka kale waxa uu ka hadlay go'aankii ka soo baxay isimada SCC ee ku aadan ka bixitaankooda Puntland waxa uuna sheegay inay saameyn xoogan ku yeeshay Puntland gaar ahaan qaabka ay u socoto doorashada. ugu dambeyntii waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyay in doorashadan ku dhici doonto waqtigeeda lagana gudbi doono xaaladaha adag ee haatan ka jira maamul goboleedka Puntland. si kastaba xaaladda Puntland ayaa haatan ah mid aad u cakiran waxaana isugu darsamay khilaaf doorashada ku aadan oo aanan weli xal loo gaarin iyo go'aan culus oo ay qaateen isimada SCC Khartoum oo ay uga baxeen guud ahaan maamul goboleedka Puntland. waxa walba amuurahaasi ku soo kordhana wararkii iyo barnaamijyadeena xiga ayaan idinkugu soo gudbin doonaa mahadsanidin.